السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بندين سلامة يا وأحمد بوصي مركلة. بل ما أنت وحن دول تجينا أرين لياب عجيب وأرين ده كفارة ولا جاي بينا بدن كنا إنه هراي وأرج هراي ومقل كسر دواء كليب تاني للدعوة. قفك بنو آذن كأول السيدو وهلك إنك جم وقضى وقف بني آذن هو نول إن وقف شيء أو ضقة هالكاس بالجلنا هيا عيديجا هيا إن باريتان مركان سمية أرنتان عند بقلي وحايسو بحذي إن قف كمركو دأجارو أو شيء ونقضو ضق نقضو إنا يحبالان قفكي أسوغو نول dadka xabaalahaya oo qabanahaya oo geesaha ka taagan oo hadeertaan jicsinkiisii iyo cuntadiisii u diyaar gareynahaya oo subag iyo malab iyo barafuun geesaha uga shubahaya asagii oo nool oo fadhiya oo indhihiisii shan yihiin oo indhaha ka gulucsiinahaya waa dadkii uu dhalay ama ay dhashay iyo kuway sii dhaleen iyo kuwii ehel ugu xigay weey wax alla wuxuu adduunka ugu jeclaa bay godka la gelinahayaan oo ay ku jecsimahayaan oo ay siinahayaan wuxuu cuni jiray wuxuu cabi jiray wuxuu xiran jiray iyo wuxuu isku carfin jiray iyo waxyaalo kale oo fara badan oo ay aaminsan yihiin ayagu baaritaankan intaan ku jiray baa waxyaalihii aan la yaabay oo iga soo baxay waxaa ka mid ahaa waqtigii la duugi lahaa markuu gaaro inay la sugaan maalintii uu dhashay bishii uu dhashay waqtigii uu dhashay iyo saacadihii uu dhashay hadday habeen ahayd habeen bay duugahayaan hadday maalin ahayd maalin bay duugahayaan galab iyo waqtigii ay ahayd uu markaas uu maaragtay ku aadanaa waqtiguu dhashay bay godka gelinahayaan iska duug maaha dhankooda arrin sahlan maaha waxaas aad arkaysiin oo cuntaabaa diyaar ah intuu fadhiyo oo ay u soo sameeyeen markii hore intaan la duugin geesihiisoo dhan waa la buuxinahayaa jicsinkiisii iyo wuxuu cuni lahaayoo dhan baa geesaha laga dhigahayaayoo laga buuxinahayaa waxaa kaloo ka mid ah qofka markuu dhallinyarada ahaa uu firfircoonaa waxyaalihii uu qaban jiray baa lagu jecsimahayaayo waxaa ka mid ah hadduu ahaa wiil hoog dadkay Soomaalidu yiraahdaan wiil hoog oo halaaga ah oo dagaalyahanka ah hadduu ahaa oo dad soo dilay waxa la siinahayaa wuxuu isku difaaci lahaa markii kii uu dilay uu ka hor yimaado ay arkaan wuxuu iskaga celin lahaa يقال لفتي يوحي بهوست اللوج قلنا هي قفكي كليبتان داوضة وحان في لهيا معناها اي سمايسين او سماين دونتو محيطة إلهي مسلم ككاديجي إلهي مسلم كنغاديجي نمعد إلهي نسيي jahliga cawaanimada Ilaahay naga saaray oo fiirso dadka halka idinkaga muuqda iyo annaka adooma Ilaahay baan wadana Ilaahay baana wada abuurtay bal aan eegno aan isdul taagno Ilaahay amaalku noo galay rahiimka amaalku ku galay adoomadaas kala soo dhex baxay islaamkana ka dhigay soo Ilaahay nooma hiilin soo Ilaahay kuma hiilin adoomadiisa wuxuusan wada siin soo Ilaahay kumuusan siin dad badan oo Ilaahay amaalka u galay Ilaahay saa ugu hiiliyay baan Ilaahay ka cabsanayn Ilaahay wajiga dhulka u dhigay gacmaha kor u taagay oo aan lahayn Ilaahow adaa mahad leh alxamdulillah إلهو أذي مهدو كوسق ناتي يا الله أذيقا أمان له كونك أول له إلهو أذا مهد له أندهين إلهي عرق لنا هيا
wuxuusan ilaahay u bannayn samaynahaya dhiig muslin iyo dhiig binu aadan galahaya masaakiin meel iska fadhida qarxinahaya dilahaya dadaan waxba u geysan dulminahaya maalkooda dhacahaya burburinahaya ilmo yar agoon iyo rajay ka dhigahaya bal u fiirso qofkaas amaalkuu ilaahay u galay miyuu u guday jawaabta adinkaan idiin daynahayaa laakiinse qof kasta oo maankiisu joogo dib ha isku xisaabo dib ha u fakaro ha fiiriyo kilibtaas idiin muuqata dheh soo addoommadaas ilaahay ma uumin soo ilaahay ima uumin muxuu ilaahay aniga iigala soo dhex baxay ilaahay muxuu aniga iiga choice garaystay oo muslin iiga dhigay oo amaalka intaa la'eg iigu galay soo inaa guddid ma aha u fiirso maantay waalidkaaga iyo laaf wankaaga haddaadan ayakoo nool aadan duugayn haddii aadan gubayn haddii qalfooftooda aadan guriga dhiganayn oodan daawanayn lafahooda intaa shiidid haddaadan hawada raacinayn godka haddaadan cunto ugu geynayn wixii ay jeclaayeen haddaadan garabkooda dhigayn muddo markii la joogo lafahooda haddaadan la soo baxayn soo guul alla nugu galladay maaha ilaahay baa mahad leh marmar baan waxaan la yaabaa oo aad iskugu kay qaban weydaa qof muslin ah oo cawaan iska dhigahayo ilaahay cawaan ka dhigin oo qof kaloo walaalkiisa ah ugu faanahaya qabyaalad iyo reer iyo waxaan jirin oo diinta sal ku lahayn oo ilaahay raalli ka ahayn qof walaalkiis ah oo laga yaabo inuu asagaba ilaahay uga dhow yahay baa waxaa laga yaabaa cusurinimo inuu ku sameeyo laandheerannimo qabyaalad jaahilnimo iyo waxaan jirin inuu guur xalaal ah oo labadaa qof oo muslinka ah ilaahay isku banneeyey oo ilaahay isku xalaaleeyey inuu ka hor istaago oo qabyaalad uga hor istaago oo waxaan diinta sal ku lahayn uga hor istaago haddaa weyddiisid oo tidhaahdid maxaa kaa qaldan war waxaannu maxay yihiin diinta sal kuma lahane xaggee ka keentay kule waa dhaqan waa ree qurac iyo ree qansax waa halkan iyo dhinacaan jahliga uusan ilaahay ku ridin oo qofkaasuu asagu xambaarsaday bal eeg waxaa la yaab lahoo kale inaan annakii ku eeganayno dadka noocaas ah oo cusurinnimada iyo jaahilnimada intaa la eg barkanahaya waxaa laga yaabaa inay dad ehel u yihiin culummo ah waxaa laga yaabaa inuu shiikh dhalay waxaa laga yaabaa inay walaalo iyo dad wanaagsan ay la dhasheen oo culummo ah oo diintii yaqaana aysan u nasteexaynayn war aan fadhiga ka kacno jahliga iyo cusurinnimada aan la dagaalanno ilaahay aan u mahadinno amaalkuu noo galay aan ogaanno